bawdya rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahayna baraysa inay dunidu meerto tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn. maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo, haatan kii laalaadana ma aha inaynu u malayno sidiisaas inuu ku waari doono. sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado, dhulkana uu ka qaado. hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto, aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay, haddana lama waayo dadka qaar iska dhaga tira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan. maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaa kaga hadleen, iyagoo ugu dardaarwarinaya calooshila cayaarka sareedada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idil ku sareeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta, haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya amaba goomooni ku garamara. allah u naxariistee gabyaagii soomaaliyeed ee magaca weyn lahaa sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa maansayahanadii goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay. tuducyo ku jiray gabayadiisa dheerdheer midkood ayuu sayidku ku bilaabay: cirkaan di'in, abaar daaliyaad, dunida oo qiiqday, dayax ururta daariga ka maray, dirirka oo liiqay, marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaaye, dayraanka curashaa ku xigi daacigiisabane, marunbuu darooraa intuu daadka soo rogo baldayaay duraabtaa horuu daafta mariyaaye. nin daleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye, inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo, ha u dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaaye. gabyaagii isna murtidhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilliga noolaayeen, isku gadana ahaayeen, lana oran jiray qamaan bulxan, waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa: adduun waa har labadiisa gelin, waana la hubaaye hal galgalatay waxaa looga dhigay, yaani now harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaay. haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdya rageed midba maalin qaawan, isaga oo garowsan ayuu samatar baxnaan u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo kol uu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa. dhaqan ahaan maantaa oo kale niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo, ha yeeshee aan midna ula soo ordin. dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaarwariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray ay iyaguna ku dambayn doonaan. sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandarraysani dayrta dhow inay u soo baahdaan, iyadoo markaa uu isagu ka soo kabtay dhibta hadda haysata ee ay ku fiirsanayaan. maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo mahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa: bawdada raggaba maalin bay dani bannaysaaye, nin barwaaqo seexdaba wad baan laga bariinayne idinkoo bukooda, iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday, shuushku waa naga baxayaaye oo ay baraani u kulmaan, beliya raaskiinu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed.